muuqaalka ninkan uu soo dhacay gurigan waliba isagoo aad uga muuqda xanaaq fara badan oo ay qabatay kaamirada ku xiran albaabka gurigaasi ayaa waxa uu noqday muuqaal aad ugu faafay internetka maalmihii la soo dhaafay. muuqaalkan ayaa marka hore aad aragto waxaad isweydiin kartaa ninkan ma nin deriska agagaarka meeshaasi ah oo gurigan cabasho ka qaba yacni ma mise waa nin arin kale wato marka aad u fiirsato sida uu xanaaqsan yahay oo walibana rabo inuu guriga uu u soo galo. hadaba ninkan oo marka dambe say ahaataba guriga soo galayo ayaa waxa uu gurigan ka raadinayay marka aad maqsho waxay ku noqonaysaa wax la yaab leh. insha Allah sheekadan oo dhinacyo kala duwan aan ka fiirinayno ayaan muuqaalkan kugu la wadaagayaa soo dhow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما صاحبت ولا على شرفت بدن سوداد مركلك سوداد مقال كله ولا لكن صاحب كان اسمه نسوي channel كوسو برو كورن جنبالك جورجا قاعد يلا زوج قراء وعاد مركا كاميرا ده جورجا قاعد كفير سو عاد أركتوني كان صنيع بربوران وما ركت كوسو تاين الباب كجورجا وليبنا كله وحربا إنه جورجا سوا قالوا ما نعتها وحربا إنه حكوا ديو أو ماشى سكاو ديو كاتو هذا بقى شكلنا واحد عضي تضبط بيشان هذا أن كجرنو أبريل سنة كان لبده كن إيو أفر إلى بعدين وحنا كنا عضي ما لي هذا فيرفيل أو كترسن مركا إن قبل كاليفورنيا أو حال ساعة وقتي أو جاريان مركزي وجرتو مقالة سان فرانسيسكو ساعدوا واسعك يسد حدقي خاص بحنيمو ninkan oo magaciisa lagu magacaabo Jason Nicholas oo da'diisuna ay tahay 29 sano jir ayaa waxa uu soo garaacaya gurigan albaabkiisa. yani gambalka markuu sidaas u soo taabsado guriga waxa ku xiran markaa kaamirad oo maaragtay duubayso sidoo kalena uu qofka ka arki karo qofka albaabkiisa soo garaacay isagoo markaasi joogo ama ka maqan ba gurigiisa oo telefonkiisa markaa uu kala socon karo qofkuna ku arki karo sidoo kalena uu uga jawaabi karo. sadarteeda ay tahay dad badan oo arintan ka faaloonayay ayaa waxay yiraahdeen ba arintani waxay baxaysiin dhab ah u noqotay adeegani. marka adeegaas oo xilligan hadda la joogo dad badan ay isticmaalaan ayaa hadana shirkadan ama dhacdadan waxa markaasi ay muujinaysaa muhiimadda uu adeegaasi leeyahay. sababtoo ah aabaha ayaa markaasi u jawaabayo ninkan albaabka soo gargaraacayo kadibna aabaha markuu arkay ninkan oo ku labisan jaakada dheer iyo muxuu ahaa fanaanadan oo ay ku sawiran yihiin waxyaabaha jinniga sidoo kale xitaa dacso wato oo u muuqda ninkan inuu gurigiisa ka soo kacayo toos uu gurigan u soo aaday ayaa markuu ugu horeyso ninkan albaabka marka loo jawaabo la yiraahdo hello yani waayo waxa uu hadalkiisa ku bilaabayaaba albaabka ma furi kartaa fadlan. hey ninkii guriga ayaa marka wuxuu weydiinayaa maxaad rabtaa hadee saan u furo albaabka gurigayga wuxuu leeyahay waxa rabaa inaan hubiyo in wax walba ay okay yihiin. I just want to make sure that everything's okay. marka ninkii gurigiisa la ayaa wuxuu leeyahay marka ma fahmin waxa ka hadlaysaa niyo waxaad samaysaa gurigayga ka tag. balse ninkan jawaabtii taas xigtayba waxa uu sameeynaya isla markiiba inuu albaabka laado. albaabka markuu laad ku dhuftana xitaa isaga laftirkiisa dib u baxaya hadana ku siganayaba inuu dhaco. kadib ninkii wuxuu bilaabayaa inuu qarsho aaw gabadhii ma guriga ku jirtaa fur albaabka. kadibna wuxuu leeyahay marka horta ma taqaan aniga magacayga. markaas ninkii gurigiisa kale wuxuu leeyahay kuma aqaan magacaaga ma aqaano laakiin waxa ogaay inaadan maaragtay de agaarkan aadan deganayn guriga ka tag ayuu wal celinaya. markaas ayuu ninkan waxa uu leeyahay magacayga waxa la yiraahdaa Harry Dresden haddii aad guriga iga furi weysana waan ku dilayaa. marka magacaas ninkan sida sheegnay magaciisa saxda lama yiraahdo balse Harry Dresden kana waa magac astaan ama character ah oo markaasina character geesiya oo dadka soo badbaadsha. marka ninkan magaca characterkan ma inuu magaciisa ku qarsho ayuu u sameeynaya ma mission kale uu ka damacsan yahay maxay ula jeedadiisu tahay waan u soo socnaa. kadib ninkii guriga iska lahaa oo dabcan sida ay sheekadu ku imaanaysaaba oo isla markii yani u soo dhaqaaqay inuu gurigiisa soo aado waliba isagoo aad u degdegsan ayaa ninkan intaasi gudaheeda markaa la sii hadlay wuxuuna leeyahay gurigayga ka tag. يعني waxa ka hadlayay waxa sheegaysa ma aqaan balse ninkan wuu si xanaaqaya waxa uu goynaya ama uu jaraya silsiladii ku xirneed gambaleelka albaabka meesha markaasi surna. markii dambana kaamirada ayuu ku soo qaylinaya balse ninkii inta uusan weli guriga imaan nasiib daro ninkan waxa uu helaya markaa wada kale oo yani daaqad dhala ahayd meelahaasi ayuu guriga ka soo jabinaya gudaha ayuuna u soo galaya. ninkan markaa guriga iska leh xilligaas ahaan guriga familkiisa ayaa jooga xaaskiisa oo waliba xilligaas xaamil ah iyo wiilkiisa 5 jirka ah. balse intaas gudaheeda kulay telefoon kale miya ayuu kala hadlay si ayuu ula hadlay ama xaaskii ayaa markaas dareentay xaaladda jirtay waxay sameynayeen markaa in ay ku dhuuntaan garaashka guriga
ninkan marka uu guriga soo galo guriga kaliya waxa markaasi gudihiisa ku xiran halkii kaamirad ayaana markaasi waxay soo qabanaysaa ninkan oo guriga dhex socdo marba albaab furaayo albaab ayuu galayaa welina waxa uu leeyahay aaway يعني وحبو رادينايا قف بو رادينايا نكان muuqaalka baraha bulshada la soo dhigaya marka waxa uu muujinayaa in ninkii gurigiisa lahaa markaasi yimaaday kadibna ninkan ayuu u galaya meeshii ku jiray oo waxaana dareemaysaa marka inay si isku qabqabsadeen ama ay isku gacan qaadeen oo waliba ninkii guriga soo galay si uu looga adkaaday ama aad moodo inuu soo miirsaday xogaa yar oo sidii marka hore uusan u xanaaqsaneen kadibna ninkan oo ah midkii gurigiisa lahaa ayaa waxay soo qabanaysaa kaamirada isagoo badeel wata waxaana weli uu leeyahay gurigayga isaga bax waxaad raadinaysid meeshan ma jiraan ee gurigayga isaga tag oo waxay noqonaysaa marka daqiiqada kadib inay booliiskii guriga soo gaaraan marka dhacdadan inta soo baxday hadda waxaa aad loogu amaanay habdeganaanta ninka guriga iska lahaa u muujiyay sababtoo xitaa markii hore ahaan haddii loo fiirsho waxa la isdhihi karaa macnaha ninkan inuu sii hayo ayuu rabay inuu ka sii xanaajiyay rabin maadaama xaaskiisa iyo caruurtiisa ay guriga ku jiraan laakiin markii dambe xitaa guriga ugu dul yimid yani aad uma uu gacan qaadin يعني wax badan kuma uusan dhufanin xitaa sidoo kale hub ma uusan soo qaadan ama ma uusan adeegsanin xitaa geedka uu haystay oo badeelka kuma uusan dhufanin oo taasoo welibana sharcigu uu u furayay ninkan haddii uu dilo xitaa inuu yahay nin markaasi gurigiisa loogu soo dhacay waxaana kaloo welibana sii raacsanayd inuu xitaa weydiiyay yiri adiga ma militariga ayaad ka tirsanayd ama aad ka tirsan tahay Are you military? Yes. Okay. Can you help me out? Okay. Yes. I understand what you're going through right now. Yes. Can you step outside? Yes, sir. taasoo markaa ninkan xitaa u furtay wado wada hadal ah oo ku yiri ha run iyo been waxay ahaataba kadibna wuxuu yiri waa ku fahmi karaa laakiin waxaad raadinaysaa gurigayga ma yaalaan ee gurigayga masaga tagi kartaa markaasna markaa ay noqonayso kadib booliiska in sidii ay guriga uga kaxeeyaan kadibna Jason oo ah ninkii guriga soo weeraray ayaa waxa lagu qaaday dacwadahan kala ah jabsasho guri hanjabaad weerar iyo sidoo kale burburin calashan maadaama uu guriga khasab ku soo galay laakiin hadana booliiska markay ninkan arintiisa sii fiirsheen waxa jirtay adiga 2 maalmood ilaa 3 maalmood ka hor xilligaasi in ninkan mar lagu arkay sidoo kale isagoo gabar yar oo 5 jir ah maaragtay si ula taagan ama u dhawaanay taasoo xitaa markaasi looga dhigay dacwad ah inuu maaragtay markaa ilmo yar oo minor ah uu markaasi xiriir la sameeyay okay marka inkastoo warbixintooda ninkan aan laga soo saarin hadana sida muuqatay marka oo la isku geeyay waxa soo baxday marka in ninkan nin oo dhimir ahaan uu yahay nin si ah yani marka loo fiirsho guriga qaabku u soo galay sidoo uu lahaa aawi gabadha yareed sidoo kale uu isticmaalay magaca characterka Harry Dresden ninkan marka waxa uu muuqatay in oo ay khatar jirto macnaha in gurigaasi gabar yar lagu hayo ama lagu dhibaateenayo oo reerkaasina ay dhaleen isagana sidoo kale uu yahay qofka geesiga ee soo badbaadin kara si kasta aad su'aalo badan oo waxa jiro marka aan laga jawaabin oo case-kan ku saabsan oo aan weli soo bixin sida ninkan hadda taariikh ahaantiisa qof sidee hore ayuu ahaa waxa uu sida dhabta markaasi u raadinayay ama u muuqday isaga maxayin sidoo kale xitaa maxaa markaasi ka dhigay isaga hadii uu xitaa qatar inay jirto uu dareemay xitaa in uuna la xiriirin booliiska ma aragtay markaasi isagu isku maleeyaba in booliiska iyo ka awood weyn yahay oo isagu uu yahay ninka xaaladaasi kala furdaamin la ama soo badbaadin lahaa su'aalahaasi iyo kuwa kale oo xaaladan ku saabsan ba wali laga jawaabin laakiin tan waxay ku tusaysaa qofka in marmarka qaar uu wareeri karo markuu wareerana uu xitaa isdhihi karo marka adiga ayaa ah qofka badbaadin karo qatar markaasi jirto balse sida dhabtaana aysan jirin qatar uu badbaadsho balse qatarta laftirkeedaba xilligaas ahaan uu isaga yahay waa kuma santaan muuqaalkan inta daawata insha Allah inta muuqaalkan kulmi doono nabad